sagaarkan waa sagaarkii luqadda carabiga ku hadlayay dhawaan ay ahayd markii aanu baahinay sagaar yar ee dhashay oo hooyadii la dilay kadibna luqadda carabiga ku hadlay arrin mucjiso ay ahayd dadkuna siyaabo kala duwan ay arrintaasi u hadalhayeen haddaba waxaan booqanay xilligan aan gacanta ku hayaa sagaarkii yaraa ee dhashay ee luqadda carabiga ku hadlayay subxaanallah fadlan muuqaalka marka hore la garee haddii aad rabto inaad wax badan ka ogaato sagaarkii yaraa ee dhashay ee luqadda carabiga ku hadlay ilaahayna uu ka dhawaajiyay qaybta commentiska fikirkaaga ama aragtidaada sagaar yar ee markaa dhashay ee luqadda carabiga ku hadlaya ee baweynana uu ka dhawaajiyay waad inagula wadaagi kartaa si sheer gare oo la wadaag saaxiibadaada si arrintan mucjisada ah ee duleedka gurceel ka taagan ay u daawadaan sagaarku wuxuu xilligan ka daba ordayaa hooyo Fahima Cali Xaashi oo ah hooyada qoyskana maamusho sidoo kale waa qofka gacanta ku hayo sagaarkan mucjisada ah ee la arkay isagoo ku hadlaya luqadda carabiga qoyskana gacanta ku haya sagaarkan ayaa degan duleedka degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya xilligu waa casar liiq oo qorraxdu way sii dhacaysaa waxaana la kulanay dhowr qof oo ka tirsan qoyska xanaaneeya sagaarkan mucjisada ah waxay nooga sheekeeyeen waxyaabaha la yaabka leh oo ay ku arkeen sagaarkan ee ka hadashiyay subxaanaka yaa cadiim marka uu baahi dareemo wuxuu ku dhawaaqayaa ummi oo ah eray carabi ah macnaheeduna waa hooyo maamada marka ay aadayso magaalada ama xaafadaha dariska la ah uu raaca kama cabsado dadka uu la kulmo oo waxaa moodaa sagaara in muddaa rabaayada ahaa waxaa intaasi dheer inuu quuto caanaha xoolaha ee liska ah iyadoo lagu siinayo masaasada ilmaha dhasha lagu nuujiyo sidoo kale waxa uu qaadanayaa amarada la siiyo sida kaalay soco oo ay ku tababartay maamo Fahima sida ay iyadu inoo xaqiijisay sagaarkan waa sagaarkii luqadda carabiga ku hadlayay markay baahato ayna dhawaaqdaa markay dherigsan tahay way iska seexanee marka baahi waa ka ilaalshay aad uma hadasho hadda uma dhawaaqdo baahi waa ka ilaalshay mar walba masaasadaasaan caana ku siiyaa hadda waa dherigsantaa waa siiyay laakiin markay baahan tahay way dhawaaqdaa anaana xanaaneeyo anaa kafaalo qaaday haddii aanan dhiman amaan la iga xadin nolosheeda anaa kafaalo qaaday haddii ilaa yiraa wixii islaan oo ila garab gelayana diyaaran u ah magacayga waa Fahima Cali la yiraa sagaarkan aan korinayay ilaahay baa macnaha igu soo aadiyay asagoo dhibaataysan oo hooyadiis markay dhashay laga dilayaan meel ka qaadnay oo waxa uu ahay gariir iyo baashan la yiraahdo sangurta iyo bahalo dhan oo inuu cuno rabo oo uu feel ugu jiro ilaahay nala kulan siiyay ilaahayna waan ugu guuleeyay waa ka qaadnay cawadii xataa meeshii aan ku haynay dabacaday dhowr xabaha nagu soo weeraray waan ka badbaadinay marka sidiyaan ilaa hadda u haynaa caanahaas masaasadaas ariga ugu lisnaa ku siinaa waana ay cabtaa halkaas masaasado buuxda 3 goor ay cabay maasha Allah wayna fiican tahay waa caafimaad qabtaa hadda waa qadar ilaahayna waaye ilaahayna soo kulan siiyay ilaahayna nagu soo aadiyay dadka qaarkood waa dili lahaayeen ama waa duba lahaayeen alxamdulillah aniga markii luqadda ku hadlaysay wiil yar oo iga soo horeeyay oo iyadoo dhibaataysan oo adu asbuuc camal qadsaneed iga soo hormaray geesta kale ari kasaas uga soo rogayay waxa waaye marka anigu carabina ma aqaano kulay wax markay dhawaaqdo qofkii carabi yaqaan dareemaya anigu carabina ma aqaan wax adigu ummi camalaha anigu ala yiri ilmo oo iskoolada dhigta waxay dheen ummi ay leedahay luqaday ku hadlay kulay luqaday taana anigu awalan aqoon laakiin luqaday ku hadlay dadku waxay dheen waa carabi aad iyo aadan adduunyada mucjisada la iska arkayo waa mucjisooyinka kamid ah markii qiyaamaha soo dhow yahay kala mucjisooyin badan la sheegay in la arkayo anigu waxa isir show ayagayba kamid qiyaamaha soo dhawaa isirba waa cabsadaba hadda saasa marka u xanaanayna ilaa hadan u haynaa macnaha waana ay fiican tahay hadda kulay nagama xanuunsan caanahaasaan siina ariga xoolihi iska abaarsaday hadda caanaba lahayno iska dhibaataysanaan wax uga raadinaa waana alxamdulillah way ku fiican tahay intay baahneed waay markay baahneed oo ay dhibaataysneed oo wixii la arkay geedaha nuugayso ariga inta dhex gashay faylaha ka nuugaysay ay hadlaysay markii wax la siiyo oo caana la siiyo caloosheeda wax galeen waaba seexata sagaarkan hadda aniga gacanta ku hayo xanaaneeyo oo markii ay baahato kale xilliga wax la siinayo ay joogto oo ay isleeda wax laguma siin ama ay qofkii la joogo kala weyso ama sidii camal u dhawaaqo waxa isleeda 3 nooc naqshad camal codkeeda ka soo dhex baxay aniga marka ma aqaan codkaas wuxuu yahay ma aqaan laakiin dadka arkay waxay leeyihiin waa carabi ma ay ku kacdo cawadi ma kacdo qorraxda markay dhacdo way cabsanay waxay isleeda bahala ku cunaayo sababtay tahay markay dhashay ay dhalatay bahala ku indhaha ku kala qaaday
qoraxdu markay dhacdo meeshii mugdiyaha aragtay gale waana aamusee laakiin waxay ay hadle ama ay dhawaaqeen ay baahan tahay wax sheega waa maalintii. Cabdikaafi Ugaas waa mid ka mid ah dadkii goobjooga u ahaa xilligii uu afka Carabiga ku hadlayay sagaarkan mucjisada ah waana shakhsigii soo qaaday sagaarka ee uu keenay maamadan. Sagaarkan yar ee u jeedaan waa sagaarkii yaraa ee mucjisada lagu arkay isagoo baahan aan ka soo qaadnay duleedka degmada Gurceel. waa sagaarkii luqadda Carabiga ku hadlayay oo daacad ah waan markii la fasiray kulay inuu baahan yahay hooyadiisna aysan nooleyn ayuu sheegay. marka waa qadarta Ilaahay waaye waxa waaye marka wax walbana waa la arkaa waana haddeetaan maaragtay waana wax waadax oo banaanka yaala cid reer Gurceel meesha ka rareynay meeshaan ku baxnay aniga waxaan dareemay waxaan inay wax bedelan yihiin dadka xogaa remiyi u badnaayeen wadaadan hal nin oo wadaad magaalada ka wacnay kulay codkii waxaan iyo dhageysan noo fasiraan dhiri nin kale oo asna wadaad yar oo miyiga jooga waa noo yimid dibigad waa asraacan dadkii dhamaay ummadii kulay waa marka hore waa la kala cararay ka bacdina waxa meesha ka muuqata in uquba ay ka jirto meeshaas codow ku hadla xabeeb leh oo aad moodin Carabi yahay kulay dadka dhamaan wax isku raaceen in waxaan Carabiina ku hadlayo marka saasan kulay aan go'aansanay inaan macnaha dadka aan wax mucjisahay in la hadlo oo dadka la tuso